waxaan taagannahay jigsanka Nyeri looga leexdo Cielo hadduu ilaahay yiraahdo halkaan salaas wax ku dukanaynaa safarkeenana sii wadan doonaa la socod wanaagsan gaariga aan wadano hadduu ilaahay yiraahdona kana safarkeena ku sii gaari doonaa halka wajhadeena ama directionkeena السلام عليكم مقعيقا وآدم محمد waxaan safar u soo kacnay saakan aan soo aadnay Leysaamis meel yiraahdo degmada Leysaamis gaar ahaan tuulo hoos tagta oo horeyna u tagnay ama fiidiyoogii hore ka daawateen la yiraahdo loglogo waxa degan qolya aan qaraabanahay ama Soomaalinimo ay noo heliso annaga wada dhaxayso ayaa degan sida fiidiyooyada hore aad ka aragteen luqadooda sida ka muuqata ama dhaqankooda qolya asalkooda Soomaali ahaan jiray Soomaalinimadiina ka fogaatay dhaqankii diinta Islaamka ahaana ka yara fogaaday labadoodaba inay wax yar uun ka muuqdaan mooye waxna aan ka haysanin qolyahaas ba Ilaahay wuxuu waafajiyay qolyo muxsiniin ah inay garab istaagaan Soomaalinimada ku garab istaagaan Islaamnimada ku garab istaagaan qolyaha muxsiniinta soo raacay waxaan hadda taagannahay Cielo waxaan si aadi doonaa halka ay naga xigto Leysaamis waxaan wareysan doonaa Ustaad Cabdallah oo ah qofka muxsiniinta madaxda u ah waxaan ka wareysan doonaa Leysaamis iyo loglogo qofka aanan aqoonin halka ay ka xigto juqraafi ahaan inuu u sharxo sidoo kale haddaad ku cusub tahay channelkeenan mardhow aad ugu soo beertay subscribe inoo saar videogan like saar asxaabtana la wadaag si ay u ogaadaan firxadkii Soomaalida halka uu gaaray Assalaamu alaykum Ustaad Cabdallah waxaan ku weydiinayaa qofka ku daawanaya oo aanan aqoon u lahayn loglogo halka ay ku taalo ama Kenya aan weligiis imaanin qaabkee u sharxi lahayd loglogo location ahaan juqraafi ahaan halkee ku taala loglogo waxay ka tirsan tahay degmada Leysaamis hoos tagta countiga Marsabit waxay u jirtaa Marsabit magaalada waxay ka soo jirtaa dhanka Nairobi ay ka soo jirtaa ilaa 50 kilomitir markii laga tago dhinaca Cielo markii laga tagana ilaa 210 kilomitir ay u jirtaa Cielo magaalada Cielo loglogo waxa degan qolo la yiraahdo Rendile oo asal ahaan ka soo jeedo dad Soomaali ka soo jeedo waa Soomaali isku dhaf ah oo ayaga soo guuray halkaas soo degay marka ku noolaaday halkaas kadibna ku milmay qolooyin kale oo Samburu la yiraahdo ku dhaxmilmay ka guursaday dhaqan ahaan ayaga maaragtay qaatay dhaqankoodii halkaas marka ku nool yihiin wadad asalkooda muslim aha laakiin hadda muslimnimadii aan waxba ka haynin aanan ka ahayn inay awoodooda muslim ahaan jireen aanan ka ahayn haddana diyaar u ah hadii maaragtay loogu yeero islaamka hadii loogu yeero diyaar u ah u baahan in maaragtay macallimiin iyo culimo loo geeyo oo diinta la baro oo lagu soo celiyo diintoodii asalka ahayd iyaga ay hore u haysteen lagu soo celiyo marka maanta halkaas aan booqasho ugu soconnaa waa booqashadii saddexaad aan halkaas ku tagayno marka la socod wanaagsan insha Allah taala hawlo badanna waan ka soo qaban doonaa insha Allah waxaan ugu yeeraynaa dhammaan bulshada ummadda islaamka oo dhan intii rabtay inay maaragtay ka qayb qaadato inay dadkaasi horumarintooda iyo maaragtay wax u qabadkooda intii rabtay inay ka qayb qaadato inay nala soo xiriiraan ama ayaga si toos ah u tagaan hadda locationka way haystaan assalaamu calaykum waraxmatullahi imaatinkeena aan imaanay maanta wuxuu ku qotamaa laba shay shaygu koowaad wuxuu yahay qolyaha muxsiniinta waxay soo heleen 300 oo neef ari ah dadka maadaama xoolaha ay yihiin xoolo dhaqato ay yihiin waxa kaliya ay fahmayaan xoolaha ay yihiin xoolaha aan ku caawino
si maxaa la yidhaahdaa abaarihii wixii soo maray ay kaga kabsadaan si qoys walbaba aan u siino 8 neef oo ari ah ayay yiraahdeen 300 oo neef oo ari ah ayay soo iibiyeen tan labaad waa taa adduunyada waay tan labaad akhiradoodii maadaama diin ay jecel yihiin maadaama Soomaalnimada ay jecel yihiin barashada diinta ay jecel yihiin koo ugu horeyn intii islaamka ah masaajid bay codsadeen oo meel fog ay u aadaan masaajid hana loo dhisay dhaheen hadda maanta waxaan dhagax dhigaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo masaajidkii labaad ee magaalada masaajid uu ku yaala magaalada uu ka fog yahay say sheegeen masaajidkii labaad si loo dhagax dhigo ayaanu imaan labadaas shay hadda rabnaa inaan kamera dhalino hadduu Ilaahay yiraahdo laawashadeeni ama imaatinkeeni ugu dambeeyay ma noqon doonto masaajidka maanta baa la dhagax dhigayaa dhismihiisu uu soconayo ku dhawaad 2 bilood 3 bilood buu qaadanayaa filayaa marka halkan aad u jeedaan waa masaajidka muxsiniinta u soo yabooheen ama qarashaadka ay u soo bixiyeen ama walaalahooda islaamka masaajid ha helaan ay u yiraahdeen ay soo baxsadeen meeshii laga dhisi lahaa rasuulka salawaatullaahi wasalaamu alayhi xadiis wuxuu yiri man bana lillahi masjidan bana Allahu baytan fil janna xadiis macnihiisu uu yahay qofkii Ilaahay dartiisa guri u dhiso guri Ilaahayna waa masaajid u dhiso Ilaahay wuxuu jannada ugu dhisayaa guri qofkaas guri ayuu jannada Ilaahay ugu dhisayaa xadiis uu macnihiisu yahay waad u jeedaan waa bilowga masaajid asaaska iyo dhagax dhiga oo maanta aan dhagax dhigayn hadduu Ilaahay yiraahdo dhameystirkiisa asagoo laga aadaamayo asagoo lagu dukanayo hadduu Ilaahay baaqi nafta noogu yeelo waan wada arki doonaa la socodona zeewna jooga Krendelle ويتي داغا فريندلي انا رندلي فريندلي كا انا اصلي انك دفرك لا اجوران رندلي انا هي لكن اصلكيغا جوران بانا هيو كودا هي نجوك سومالي اما كرندلي فريندلي ويتي داغا لكن في دفر لك نوس كان كيو داغا معايا في رندلي ترنكياتي ان يطر متدا ما تدعي ورمتدا افدفر لا مالي في ديسو ترنكياتي ان كالي تدا افدفرك كالو ليدا افرندلي كلا كالي افرندلي كالي اي ترنكيا يروليكا لا صعو لها اردبح markay arabtidina qof ka dirtid haye دحن ليده دحن وبي دحن مطح ليده مدح وبي دحن اف ليده اف وبي دحن ال ليده ال وبي دحن اور ليده اور وبي دحن هي افندك كوكل داي اف دفر جو فريند اللي وعور شو داش جرا هاي wax u dhaxeeya jira labada afood u leeyahay عور شو haye انه دك دودو كل دشه نعقورات انكو صوتبني دفرا وحي دفر ليده دفرا معايا انمي كور حق نمي سامبورو هي حق نمي اي سامبورو dhaqankeedii luqadeeda kale tan way soo qaateen waxaan u jeedaa alaafu wixii dafar leedahay kikoy ايش دفر ليده كوي معناها ومعويستاس دفر وتقانان دفر u yaqaanaan kulli baayiga معويس anagana معويس kelimad oo Soomaali ma ahana u maleynaa kelimad Carabi inay tahay u maleynaa Ingiriisi meelahaas inno daka kelimad Carabi way inna walaal dhaqan anaga isticmaalna ayagana isticmaalaan معويsta la mid ah inno daka walaale tinteena toqal dhashay timo aye جنتنا كور حقني من سامبور حقني ميشي إدارة في نجبابين أتنطلع ولا البيكور دسنة وعصرك في نجبابش لكني بانكي رندلي ورسق اللي مية كتاب حلو كوجبه مركان أنتوا ما ندخن كيرين دلها وحاق خصبي سامبور وليه هاي كتاب عن وذني ودين أهان عن هيسني بورتاس أيان الله توروليه هذا دخن كينا سوق لسان تقول حيدي وإحنا لو ذاي سان ديجان وين ارتدقن كينا كسر تناسوشان دقن كينا رندي لطول يا في دودين تكجرو يا فقاس ويسخ هذا جيران قلبله مرولة
دودا تمنتاك جرا رندلها waxaa ku jiro leeyahay qabiilo ajuuraanka geleble صح isaaqa kamid adiga Soomaalida iyo qabiilooyinkooda idil inta ugu badan way ku jiraan uu leeyahay yaa tahay dilira qofka inuu ajuuraan ahay ama isaaqa ahay ama kana ahay inuu dhaha macquul uu leeyahay tolla tintan timaadeen doodi nangu timaadeen wala liinti nangu timaadeen شابنا طول ما قرنا والية تسمي سجاج جرتا واجيا قارسة مندرة سجوالية سجيرتا قرنا. قف كنت جوجو وحي ولاليهين قف وجير جوجو مندرة جوجو كا جوجو إذن ولاليهين وآمنسين هنا ولا رندلا سيتي آمنسين. ما قانع أنا وحنا آمنسنا أنا ودت كيانا إنك آمنسنا الله يابا دت كينا قارئ يرهدان. مركا أي أساسي نجا آمنسين إن دد ولا لا عن هاي نترسدان. أنا قدر نترسد من هاي. داشو كورو أيه رويتي كورو أدو دودني رندل أدو دودن ناسجينا دفرت نيتا أجرنا سوالي نيتا نيتو منو وجردا سجا جوبس عندك جرو أوعية سجا كجرون طول ناسجينا عدنا كره والي نيتا نجاره أهم هي أفين كوكل داي أفين سجن كوكل داي حين شاب بيشتدا أنا بيشونا دا شاب صعود دا أنا صعونا دا شاطر الرمادة أنا الرمانة دا قول اللي لك وعي كل إدارو وحن يعز إدارو أفهم إدارو يير كيعين شابو دهاننا ده متى ده شرينكي نيتو ولا لأننا ولا لنا ده شرينكي كال كده كالونا ده أفضل فرلا كالو مني ده شرينكي نيورم ليه فيدي ليه أنا فيديو نده أصلا ما تدا فيديو أنا فيديو هذا Somali fadi so ade san ana fidi ande سجادة كنا راح ولا ليه تمام مجاي إيلو لده إيلو إسماعيل تمام إيلن ولا بحث دمه الصومالية سان أي ودسان هو فرق يربع ودحيو كان نجد السنو يكي أي دستان قل كان ما قال صومالي كان وحولد قال ما يا ودبش دول كان بنرتو دول آد اسمه واي دول دبيلات دويان دبش هكذا مركا قاب كان أنا ودسان هدان ودسان لحيان دبش على تجيس sababtoo ah dabeesha iska difaaci kara laakiin kan qaab u dabeesha kula tacaamula ay u dhiseen qaab aan dabeesha isaga dhiciyo dabeesha way ku dhacay wayna ka dhaqaaqay hadduu ilaahay yiraahdo gurigan baan caawa seexan doonaa wadaadka masjidka imaamka ka noqon doono baa iskala halkaan uu seexda ayuu yiri insha Allah halkaan seexan doonaa